بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaynu kasii anbaqaadi doonaa halkii aynu ku joojinay higaada qur-aanka kariimka ah oo ay noogu dambeysay suuratul aclaa. halkan waxaynu ka bilaabi doonaa suuratu taariq bisinka marka aynu ka tagno maxaa yeelay bisinka hore inuu soo aragnay horeynu soo sharaxnay suuradihii naga soo horeeyey. waawga waxa saaran fatxa, waawga fadxuu saaran yahay waxaa kusii xiga hamsatul wasl iyo alif iyo siin. alifta iyo laamta lama akhriyayo maxaa yeelay waa laam shamsiya la yidhaahdaa. marka waxaad isku akhriyeysaa waawga iyo siinka. siinkana shad baa saaran oo shadka waad tusaysaa inuu shad saaran yahay. waxaad oranaysaa shadka hore inuu soo sharaxnay casharadii hore dad doonaysa inaad ku noqotid. wasamaa halkaa miin baa ku jira, miin baa ku jira oo ka dambeeya siinka. wasamaa'i halkaana mad baa ku jira, madka in badan baynu soo sharaxnay iyo wuxuu yahay waxa keena sababaha keena madka. wasamaa'i marka intaas ku akhrido waxa weedha ku xigta waxa weeyaan wataariq. sidii oo kale ayaa waawgan iyo waxa la isku akhriyaa to'da. to'duna waa xuruufta waaweyn ee xuruuful isticlaal la yidhaahdo ee la weyneeyey marka carabka lagu akhriyayo, carabka buuxsama, afka buuxsama marka la akhriyayo. to alifta markay ku xigtana waa markay ugu sii weyn tahay weliba. wataariqo qoofkana qalqala saaran marka lagu istaagayo, marka xarakadan hoos dhowga lama muujinayo, waxaa la siinayaa sukuun baa lagu istaagayaa. wataariqo wasamaa'i wataariqo wamaa halkaa waxaa ku jira mad. madka jiid maxaa yeelay sababta madka keenista waxa weeyaan hamsaha ka mida. hamse maadaama uu ka dambeeyo waxaa la odhanayaa mad baa dhashay. wamaa ad halkaa qalqala saaran suunka daalkaas sukuuntu saaran yahay. wamaa adraaka ra-da waa la weyneynaya maxaa yeelay alifaa ka dambeysa xuruufta waxay noqonaysaa xuruufta waaweyn bay kamid noqonaysaa marka fadxuu saaran yahay. aliftuna kusii xigto waa markay ugu weyn tahay weliba. adraaka mataariqo mataariq miimkan waxaad ka boodaysaa hamsada ku xiga alifta ku xigta miimta hamsatul waslidaasi iyo alifta intaba ka boodaysaa, midna lama akhriyayo. waxaa la isku akhriyaa miimka fadxaysan iyo to'daas ayaad isku akhriyaysaa. mataariqo wamaa adraaka mataariqo. qofka markaad ku istaagayso waxaa siinaysaa qalqaladiisii oo isagoo xarakadiisi lama muujinayo, dumaha lama siinayo, adigoo ku xidhaya labadan kelmadood isku xidhaya mooyaane. annajmu su-aal baa timid iminka halkan aynu ku bilownay waxa weeyaan hamsatul wasl, laakiin markaynu dhawaaqnayna waxaan nidhi kelmaddu markay ku bilaabanto hamsatul waslida sidiis faatixadaynu kusoo marnay waxaa laga dhigaa hamsatul waslaha oo waxaa lagu bilaabaa baa laga dhigaa. jiimkana qalqala saaran maxaa yeelay waxaa saaran sukuun. annajmu miimka damaha saaran waxaad ku dhufataa waxaan uga jeeda yani ku qabataa thadaasi fadxaa saaran iyo alif ku taagan. annajmu thaaqib qalqalaha meesha ba'da markaad ku istaagaysid. in kullu nafsin ayaa ahayd asalkeedii oo halkan waxaa saaran tanwiin baa ku jirta nafsin, laakiin iminka siinkaas tanwiin saaran tahay hoos dhow saaran yahay iyo laamkaasi ayaad isku akhriyaysa. waxaa odhanaysaa nafsin lamaa. markaynu xuruuf dhiganayno insha allahu tacaala markaan sharxo axkaamu nuuna saakinatu tanwiin ayaan keeni doonaa sababta looga booday imka loo qunayniyo mararka qaar waa la qunayniya halkaas oo kale markaan laamku iyo raada ku xigin. nafsin lamaa calayha xaafid. in kullu nafsin lamaa calayha xaafid. halkaana muuji in dadaasi xuruuful isticlaa ka mid tahay oo la weyneynayo. fal yanduri ra-dan waxaa saaran hoos dhan waxaad ku akhridaa laamkaasi isku qabo. falyanduri linsaanu ha iloobin siinka alifta ku xigta ee alif sagiira la yidhahda alifta yar. mima dadka qaar waxay dhahdaan mima oo alif baad moodaa inay ku xigsiiyaan, laakiin halkaa alifka ku xigsiina iska ilaali. waxaad tirahdaa mima fadxa saaran bes fadxa iyo shad. mima khuliq
فلينظر الإنسان مما خلق من أي هذا أصل كذي من لا يمكن أفر سنون كانوا وحوسارا نوع من التنبص أو كلام مدين يهنون كي أون لموجينين أون حركنا لهينين وكواحد كتوسي ساين نون تاسي لجبوديون أن الآخرين وميم كان يميم كسل اسكو آخرية أحكام النون ساكنة وتنوين ما كان رجعنا شرح دونا إن شاء الله تعالى خلق مما كبسوا قادنا النون بقولين مكان لبض ميم اسكو آخري ميم يميم خلق مما إن دافق يأوين هوس دوغو waxa labada dhibcaha hoosaaran dadka qaar baa ku qadamo marka labada xaraf la isku saaro khaadan iyo xaraka xarafkaas labada hoos dhow saaran waa yaada horeysa khaaba ku xigta yakhruju khaada waxa saaran sukuuntaasi yakhruju min bayni aylubin mim yarbadu bedelaysa nuunti maxay yeelay baaba ka dambaysa min bayni sulbi نون كان يصاد كان يسكو أخري بدل من سوى شرحني وحروف الشمسية ألفتي اللامك يعني والقبودية من بين الصلب والترائب أكنو الليمد وفي صلب راضة عرب كانوا كوين إنه علوس بنا كدق نمركي إنه أخري لسيو لي بمدكي را كحروف راضة وينات مركا قاركو أفرسو والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه حركتين كتشيد حركتين وحنقول كذا قدر كآخر لهيد لبا فتحة أيات جيدة هذا سي ضمه سارية هي محايا لي وحكسي دنبية واو صغيرة إنه على حركة سوكا لم يتهي ألف تاس على إنه على quraanku wuxuu ku qurux badneeyay marka la siiyo xaqiisa yani xaraf kasta marka qiimihiisii iyo qadarintiisii iyo intii la jiidiyay aad siisid quraanku markaas uu macaanaanaya oo ku dhadhamaya inaad akhrido oo aad ku macaansato hadiya jeer innahu ala raj'ihi hakan waa lamid xuruftii aan soo dhiganay xuruftul madki la oran jiray halkan ay noogu yimaadeen alif waa kaas waawgi waa kaas yaadina waa taas innahu على رجعه لقادر يوم تب هاي لوبين قلقلداس marka laam kan akhridid siimka ku dhufo يوم تبلى السرائر يمكن رأضني ويراتي إن شاء الله انت ممكن رأها شرحي قال الله ينسي شرحي دونا إنك توقيم دوني يمكن يوم تبلى السرائر لبدي رأوت تنوي ويناتي تنوي يراتي فما له من قوة نونكي أحاول وحكدن بيا قاف قلنيه مركا لهم كلسيني وينادي محايا لي قافك أي حروف الاستعلاء وحروفتي وينادي كمدها من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع وفي صوت ذات الرجع marka qalqalada jiimka akhrido waxa ka sii dambeeya cayn sukuun saaran yahay raji' was-samaa'i dhaati ar-raj' wal-ardi radana waxa ka dambeeya waxa ka horeeya hamza wal-ardi doodkana muuji dhaati as-sad' dhaati ta'dan yaxasku akhriyaysa soodkaasi qalqalada ku jirta daalkana waa siinaysaa insha allahu tacaala waalardi daati الصadع innahu halka u fiirso laqawlun ayahda asalkeedii oo marka tilmiinta sideeda u akhriyay sida alfaad soo dhiganaysay waxa lagu soo baray an in un ama lan lin lun marka laamkani waa kii lun lagu soo baray marka waxaad u fiirsataa marka laamka waxa ka dambeeya fa تنوين وسارين هي مكان تنوين تيفا هذا مكان اسكت دبر دعانا حكمك أحكام النون ساكنة وتنوين مكان دقن دونا إن شاء الله تعالى أيين شرح دونا لكن كان قلنا يوني مكان إنه لقول فصل وما هو هذا موجي محكاية هذا هو حرفها أو يرير بكمتين
يعني la waayi karo si dhib yar loo waayi karo marka carabkaaga aanad ku muujinin wamaa huwa bilhazl inahum yakiiduuna u fiirso ha odhanin yakiiduna halkaasi kaafkaasi waa inaad xaqiisa siisaa oo ya-da ku jirta halkaasi inaad muujiso weeyaan yakiiduu damaha halkaa waxaa ka dambeeya madbil waaw madbil waawgana waa inaad muujiso xaqiisa siisaa duu yakiiduuna kayda in badan baan soo sharaxnay marka tanwiinta lagu istaagayo in loo bedelo alif kayda saas oo kale waakiidu kayda famahili haadani way shadan tahay u fiirso famahili laamkana hoos dhowaa saaran kaa hoos dhowga saaran yahay iyo kaa sukuunta saariya markaa isku qabo lil bay isku noqonaysaa soo maaha lil famahilil kaafka alifaa saaran oo u fiirso kaafiriina famahili lkaafiriina amhilhum ruwayda صدق الله العظيم إلهي نوغا أنفع قرآن كهي نغا دغو ددك قرآن uu u shafeeco qaado maalinta qiyaamaha. Assalaamu calaykum waraxmatullahi